دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به. ما شاء الله أدبان وفرح صناعي شغل الحين عن مغلق لا هي ميزان حسنات كوساره ثلاثة وناكسن بشرط المسلمين تا ومر والبا لجعليها هي خير كاس خير بدن بان كتومينا شيخ محمد الله الدنيا آخر بقى دي وقود عينينا حقيقة دي أدبان تلوين كاغا وجعلهاي أنا أنكو أرغني إله درتشان كو وجعلهاي ومد بدن المسلمين أنا أيكو وجعليهم رنتي حقيقة دي أنواد دو حان جوغا مقالة دي سفر بانو غا يميد وحان جوغا من يابوليس من صورة مقالة dad badan baa xanuunsan xaqiiqdii isbitaalada laadana raacay oo barnaamijyo khayriyo fiican way ka socdaan oo aad uga helay arrimo dacwana waa u nimid oo buugtii iyo brashuurskii dadkii muslimiinta aan ahayn ee dacwada loogu yeerayay barnaamijna 13 iyo 14 Juun baa rabnaa haddii Ilaahay inaan qabanno magaciisa aan ugu magac darnay koolka islaam dadka islaamka ugu yeer wadanyaro badan iyo dad badan xanuun badan baa jira caruur Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed oo waxa kala joogta oo ilmo 18 sano jira oo iyo hooyo Christian baana diintu waa ka baxay caruur badan oo Soomaaliyeed oo jooga Phoenix manyaa Kristaan hadda ku nool oo aan Ilaahay aaminsaneyn baa jira dibka ummadda haystay lama soo koobi karo walaalna raacay hadda isbitaal baan joogaa qol isbitaal baan kala dhaxlayaa Regional Hospital waxaan la joogaa walaal Cabdifataax la yiraahdo wiigii hore una raacay oo waxaan tagnay Rochester magaalada Alsaaciida magaalada oo aan booqanay dad xanuunsan walaalkii nala booqday xalay emergency-ga la keenay hadda isaga baan booqasho ugu imid ilaa 6 qof baan intaan hadda magaalada joogay isbitaalada ugu soo xanuunsan marka insha Allah dadkaas inaad muslimiintu u duceeyaan xaqiiqdiina dadka loo tago dad badan baa isbitaalada yaala qaasatan magaalada bulshada ay ku badan tahay cudurkii kansarka iyo cudurro badan baa dadka oogooda lagu sheegay laakiin walaalku hadda uu fiican yahay alxamdulillah isaga nabar yar baa dicaan laga qaaday marka Miftaax baa la yiraahdaa marka isaga iyo walaal caabiyo iyo walaalo badan oo isbitaalada ku jiraan soo arkay intaba inaad ducada ku kaalmaysid baan jeclaan lahaa kalmadda ugu dambaysa insha Allah khayr badan iyo wanaag badan Ilaahay حكوسي على سوق وذكرين أخونا عبد الرحمن جزاك الله خيرا سأموتش عشهي إلهي درادي وأنا نكوتش الله تبارك وتعالى رنتي أرمها مسلمين تقفك النحقلة بلشدة النحقلة قيبه هذاك الدوان لن يرى النحقلة أضياش النحقلة قويسسك إيا عائلاتك النحقلة بل مساجد النحقلة wuxuu arkayaa wax aad iyo aad u yaab badan waa qofka caafimaadka qaba ee doonaya inuu cudurrada bulshada uu si dhaba u soo ogaado sidaa daraadeed runtii warbixintan ku saabsan ilmo yar oo 18 sano jiro oo murtada oo maxaa la yiraahdaa yiri islaamku aan ka baxay kuwa mataqaanaa mulxidiin oo Ilaahay ba aaminsanayn qofka dhalinyaro haya ama dhalinyaro ku dhex jira wuxuu arkayaa wax badan buu og yahay wax badan buuna ka warqabaa wax la qariibsan hayana ma aha maxaa yeelay asbaabihii qaxootiga lagaaga dhigayba waa ka qodob waa marka labaad ee waalidiin isku mashquulsan hooyo iyo aabba isku mashquulsan aabba meel maqaaxi ah fadhiya oo BBC dhagaysanaya oo dhahaya gobol hebel maxaa la yidhi iyo gobol hebel maxaa la yidhi iyo annaga dawlad ah iyo annaga mataqaanaa iikan madax waligaana ahaan jirnay odayaal ku mashquulsan yacni ummad subxaanaka yaa rab ummad ayagaba aad moodo war xaggay joogaan bad bartankeed bay ku jiraan oo af libax bay ku jiraan isma garanayaan meeshay joogaan ma garanayaan waxyaalaha khariibka ah ee la yaab kale cajiibka badan yacni ilmahan maxaa loo soo dhigaa war ilmahan yaa gacanta ku haya war ilmahan maxaa loo tarbiyeynayaa war ilmahan cidda macalinka u awaayo ujeedada wadanka aan u joogto waa maxay aniga maxaan meesha u joogaa maxaa la iga doonayaa miyaana anigu muslim ahayn miyayna
isweydiinaynin ma wax lala yaabaa inuu korka ka fiirsado ilmaha oo uu qoloftiisa fiirsado ilmaha oo uu yidhahdo waa ilmahaygii laakiin gudaha iyo daakhilka iyo maxaa la yidhahdaa waxa aidolojiyada ilmuhu ximbaarsan yahay inuusan shaqo uusan ku lahayn ilmihii uu haysto oday reer baadiye ah iyo islaan reer baadiye ah oo aan waxba ogayn waaqica kombiyuutar si loo daaro aan garanaynin oo ilmihii asaga oo intaa wax kala gedinaya waalidkii mataqaanaa wejiga hore loo soo dhigaya suuratulbaqara iyo suuratulikhlaas oo laleeyahay qur-aankan baan dhegaysanayaa dhagahuuba ugu jiraa muusig buuna dhegaysanayaa wejigana waxaa u saaran qur'aan ba u saaran waxyaalaha cajaa'ib kale ee la yaab kale ee carruurteennu waxay akrinayaan waxaasoo dhan waxaa loo dhigayaa rag iyo dumar wax la yidhahdo ma jiraan adduunka jinsi baa jira wax la yidhaahdo jacayl baa jira wax la yidhaahdo nin haddaad jeclaato waad guursan kartaa annaga denmark muddo hadda 2 bilood laga joogaba waxaa la mamnuucay in eyga iyo dameeraha la guursado wax cajiib badan sooma dawlad dhan oo xarimaysa oo la maxaa la yidhahdaa yaa xayawaanka la guursanin oo ayaan loo tegin oo goormaa la baneeyey marka hore oo sharcigeen lagu baneeyey marka hore idan caruur loo dhigayo war ey baa la guursan karaa oo yaanyuur baa la guursan karaa oo faras baa la guursan karaa oo nin baa la guursan karaa oo adaa isbedeli kara oo adiga dhanba mataqaanaa qof dumara iska dhigi kara oo loo odaynayo oo iskuullada loogu dhigayo oo axsaab leh oo dhaqaalo leh oo bajad leh oo dimuqraadiyad ku salaysan war meesha aan joogno iyo waxaanu ku dhaqmayno waa wax la yaab leh waa kaaf iyo kala dheeri walidaalika soomaaliyey maraan hadda ahayn ayaad indhaha kala qaadi doontaan waa sadaqa run buu sheegay ninka yidhi america iyo oroba dadka jooga waxay kala soo noqon doonaan gablan ayagoon waxba aan gacanta ku haynin ayagoon dhaqaale gacanta ku haynin oo aan caruur dhaqaale gacanta ku haynin ayay kala soo noqon doonaan 40 masaajidada joogta waxba ha arkina ummadii ma joogto ummadii waxay ku jirtaa suuqa ummadii waxay ku jirtaa kalaamyada ummaddu waxa weeyaan cuquul kale iyo maxalliga ideolojiyo kale ayaa lagu rakibay 50 sano soo socdana waxa lagu talagalay in Soomaaliya dib lagu celiyo intaas ummadooda كريستنا انتاسو يهودي انتاسو ملحدين انتاسو لادينين انتاسو احزاب مركا ان لقدسو اولا يدادو وحزبكي ليبراليها وحزبكي لادينيها وحزبكي كريستانكاها وحزبكي يهوديها وحزبكي قوم اللوطكاها والأجهداداسا الله يدين كتا لقلايا سوماليي إذن كان واحد كبحي لادين قيل وقال لبدي اسقبتي لعق بيسكو هايستان دقالا يربا يسكو هايستان إلهي بدا قد أغسو قريي وإلهي قال أغسو قاضي انت إلهي الحمد لله إلهي بدا قالها نوكيري وما أنك سو شقيساني أن إلهي نكو عابدنا عطبا نوكري مركانو درغنانا أن إلهي عابدنا عرورتنا سيدا حوليه أن راعنو سيدا قيلي سيدا اللوضي سيدا أريقي سيدا باري أن عرورتنا راعنو oo adiguna waxa weeye korka ka eeg aniguna dhexdaan ku jiraya adigu midigta qabo anigana bidixdaan qabanaya subhanaka ya rab war aqligu qaabkaas u shaqeynaya community kale in la noqdo oo ummadu isu timaado oo la yiraahdo maxaadan noo ah oo 13 guriba dhaxdooda masaajid laga dhiso oo mawla laga dhiso oo macallimiintii quraanka mushaar adag loo qoro oo ducaadi mushaar adag loo qoro oo dhalinyaradii la shaqo geliyo oo la yiraahdo maanta war idinkum ba ummadan badbaadin kara ayuha al-ahibba qalbiga wallahi idlaacaya من الشعر أنت إن كالله سومالي قابك أصوته يسيدي أفكريسو خوفك بحقله قلبك الله يا والله إراك صباحي سو والله إمرقي سو كهربرا يا والله سومينا أركن محالي قفك سو مسؤول markuu dhaw war waxaan hal daayo in mataqana dhiigiisa la daadinayo ummaduna ay ku kacayso suufi kasta iyo mid kasta oo doqonana inay ummadu daba kacayso Soomaaliya arkin war waa wax laga shaqeeyay ilaahay waxaan ka bari tabaaraka wa taala ummadan inuu aqligeeda u soo celiyo والله أمد الصومالي ذا عقل يدي قد بوغلي إلهي قد كها أغا صوصارو
awoodooda ilaahay ha tuso oo ujeedada qaxootiga looga dhigay ilaahay ha tuso tabaaraka wa tacaala hadafka ka dambeeyey oo kuwa isku duuban oo isjecel oo isku dan ah oo isku hadaf ah oo culumadooda rabbaaniyiinta ah taladooda qaata ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka dhigo inta xanuunsan oo cabdifataax uu kow ka yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha noo caafiyo caafimaad caajila ha siiyo ilaahay cudurka ha ka qaado kuwa xabsiga ku jira ilaahay xabsiga ha nooga soo saaro تبارك وتعالى انت بادييسن الهي باديها نوغا سو عليو انت حشيش عقلغودا كدميي انت شيشو مسكخدودا كدميي انت قادي سيجار عقلغودا كبابيي خولودا كبابيي الهي تبارك وتعالى هنوغا سو عليو انت قلبغودا عقلغودا مخدراتك كغا دغاي قبيلك wax aan in mukhadiraadku ma aha wax la cuno oo kaliya qabaliyadu waa mukhadiraad marka qabaliyada qaybta mukhadiraadka lagu dara qaybta mukhadiraadka qaybta isticmaasho ee qabaliyada ana ilaahi tabaaraka wa tacaala qaybta mukhadiraadka aha ka soo saaro in alla inta guur xalaala rabta ilaahi guur xalaala ha siiyo in alla inta iskhilaafsan ilaahi bogooda burcad ha isu mariyo in alla inta isku wanaagsanna ilaahi tabaaraka wa tacaala ha u ziyaadiyo inta dhimatayna ilaahi ha u naxariiso culumadeenana cimri iyo cibaado ilaahi tabaaraka wa tacaala ha ku arzuqo إلهنا الشرك شياطين تيقالد علمانيين هنوغا حجاب تبارك جل وعلا أسأل الله إلهي وحودي سنة إنه الدعاء نغا أقبله اللهم آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولا جليلا إذا الليل وارخى علينا السدولا السلولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا